أبو بكر iyo Samira waxa ay ku akoreen kooxda la baxday dawladda Islaamka. Wadanka Ruushka waxay mar kale ku noqdeen iyaga oo caruur xor ah. Balse eedadood ayaa xanaanaysa. Aabood waxa lagu dilay duqeyn ISIS loo waday. Hooyadoodna xabsi daa'im ayay ku jirtaa wadanka Ciraaq. Ku dhawaad 2 sano ayay caruurta qol kula xirnaayeen hooyadood. Samirana waxa ay xusuusataa duqeyntii ka horeysay. waxay u sheegi jireen mar kasta oo ay duqeyn bilaabato inay guriga galaan waxay sidoo kale inoo sheegtay inay isku qarin jirtay jaranjarada hoosteeda ilaa inta ay ka istaagayso malika bila ayay madaxda ruushka ka dalbanaysay in caruurta laga soo saaro Ciraaq ugu dambeyn December ayaa la keenay waxaan filayaa inay isku dayayso inay ilowdo mar ayay wax xasuusatay waxaana ku iri ilow waa qarow uun waxay tiri waa qarow dheer aad iyo aad ayuuna u dheer yahay ku dhawaad 4,000 oo ruush ah ayaa loo malaynayaa in ay u dagaalameen ISIS intooda badanna waxa ay ka yimaadeen gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin oo iyaguba weerar argagixisa ay soo mareen marka ragga halkan waqooyiga Caucasus ay bilaabeen inay ISIS ku biiraan mas'uuliyiinta qaar aad uma walwalsanayn waxa ay dareemeen in gobolka ay ka tageen tirada ugu yar ee argagixiso balse markii ay burbureen khilaafada in badan oo kamid ah dagaalamayaasha waa la dilay boqolaal qoys ayaa mas'uuliyiinta ka dalbanaya hadda inay ka caawiyaan soo celinta xaasaskooda iyo caruurtooda Marina Yeshova waxay caawisay in tobaneeye ay soo laabtaan iyadoo la shaqaynaysa diblomaasiyiin iyo military Ruush ah balse dadaalka lagu soo celinayo haweenka ayaa hadda u joogsaday cabsi ah in ay ammaan qatar ku yihiin kuwan annaga caruur yaryar ayay noo yihiin maxaa yeelay dhib ma lahan dembiga ay galeen waalidkood caruurta dembi ma lahan ma dooran in ay halkaas tagaan iskabadaa dagaal Victoria 18 jir ayay ahayd markii ay ku biirtay kooxda la baxday dawladda Islaamka hadda 5 sano ayaa loo ogolaaday inay banaanka joogto haddii aysan dambi kala gelin waxa ay kamid tahay haweenka badan ee ku soo laabanaya Ruushka gabadheeda yar waxa ay ku dhalatay Suuriya si tartiib ah ayay ula qabsanaysaa nolosha dagaal la'aanta ah kama jirto Dagestan barnaamij dadka xagjirnimada looga soo celinayo xitaa maanta waxay Victoria noo sheegtay inaysan ka shalaysnayn ku biiridda ISIS mana cambaaraynayso balse waxaan weydiinay dadkii lagu dilay magaca kooxdaasi cidna ma dilin alle hortii iyo mas'uuliyiintaba wax dembi ah layguma hayo cidna ma dilin kuwa kalena uma hadlaayo qof kasta dembigii uu galay ayuu ka jawaabayaa mas'uuliyiinta dusha ayay kala socdaan Victoria gudaha guriga kama bixi karto waxa inoo sheegtay in waxa kaliya oo ay had doonaysa ay tahay korinta Fatima Ruushka hadda kuma degdegayaan in haween badan oo ISIS ah ay dalka ku soo celiyaan inay caruurta diiradda saaraan ayaa aad uga fudud